assalaamu calaykum. Kashmir, dhulka muranka iyo colaadaha, qaylada iyo hoogga. Tani waa waxa aan ka ognahay gobolkan colaadaha ragaadiyey, kaasoo Imbaradorkii Mughal Jahangir ku tilmaamay dhulkan haddii ay jirto janno dunidan korkeeda saaran. Kashmir waa jannada dunida. Haddii Kashmir ay tahay janno, dadka ku nool ma ahaan doonaan kuwa ka qurux yar dhulkooda, gaar ahaan dumarka Kashmir oo leh qurux gaar ah oo aadan ku arkaynin dunida inteeda kale. Waxay leeyihiin midab fresh ah, xarago sare iyo taam ahaansho. Xitaa markaad aragto dumar 40 jir ah oo ku nool Kashmir, waxaad u malaynaysaa inay tahay 20 jir. Quruxdan waxaa dareemay cilmi baarayaasha ilaa ay gaareen inay wax ka ogaadaan sirta quruxda Kashmir. Tani ma ahan midda kaliya aan kaga hadli doono muuqaalkan. Waxaan sidoo kale wax ka baran doonaa caadooyinka guurka Kashmir. Inkastoo dadkan ay jecel yihiin fudaydka, haddana waxaa jira caado xun oo ay leeyihiin dumarka Kashmir. Iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhaqamada kale ee aroosyada la yaabka leh ee Kashmir. Sidaas awgeed, daawo muuqaalkan ilaa dhammaadka. Kashmir waxay dhacdaa dhul juqraafi ahaan istaraatiiji ah oo u dhexeeya bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Guud ahaan, badka dhulkan waa 86,000 oo kiiloomitir iskuweer. Tan iyo markii la saxiixay heshiiskii u dhexeeyay Hindiya iyo Bakistaan, heshiiskii Shimla sanadii 1972, ayaa gobolka loo qaybiyay 2 qayb, qayb raacsan Bakistaan iyo qayb Hindiya raacsan. Colaadaha ba'an ee soo jirtay 10 sano, hidaha iyo dhaqanka gobolka ayaa hareeyay colaadan. Dadka Kashmir waa dad aad u jecel dabeecadda dhulkooda, maadaama ay ku nool yihiin dhul leh dabeecad qurux badan oo aad u soo jiidasho badan. Dhul ku labisan webiyo, buuro iyo ubaxyo kala duwan. Markaa waxaa caadi ah in badanaa dadka Kashmir ay u heesaan quruxda dhulkooda. Dhaqamada la yaabka leh ee dadka Kashmir ay leeyihiin waxaa ka mid ah in aysan jeclayn inay raacaan baabuurta iyo basaska, balse ay ka doorbidaan in ay lugeeyaan, taasoo ka caawisay inay ku raaxaystaan caafimaad taam ah. Waxaana laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah siraha quruxda dumarka Kashmir. Haddaynu ka hadlayno jannada dhulka, waa dabiici in wax kasta oo Kashmir ku saabsan ay gaar yihiin. Waxaana ka mid ah waxyaabahaas quruxda dumarka Kashmir oo loo arko in ay aad u qurux badan yihiin. Cilmi baarayaasha waxay ogaadeen in cimilada dhulkooda ay wax badan ku saaciday in dumarka Kashmir ay ahaadaan kuwo dhalinyaro ah, sababtoo ah cimilada qabow ee sanadka oo dhan ayaa ka dhigtay in dadka halkaas ku nool ay aad u cadaadaan iyo inay noqdaan kuwa soo jiidasho badan. Sababta labaad waa safroonka ama sacfaraanka Kashmir, oo loo yaqaano safroonka ama sacfaraanka labaad ee ugu wanaagsan adduunka kadib safroonka Isbaanishka. Waxaa la ogyahay in safroonka ama sacfaraanka uu iftiimiyo dhalaalka maqaarka. Xitaa dumarka caba safroonka xilliga uurka, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in tani ay qayb weyn ka qaadanayso quruxda ilmaha. Waxay kaloo isticmaalaan saliidda walnut oo gacan lagu sameeyay si ay kor ugu qaadaan quruxda timahooda. Walnuts waa nooc ka mid ah lowska, oo haddii aad jeceshahay cunista cuntada caanaha ku jirta iyo cabitaanka caanaha, marka dumarka Kashmir waxay si weyn ugu isticmaalaan jirkooda. Waxayna aaminsan yihiin in kareemka caanaha uu yahay mid ka mid ah maadooyinka ugu fiican ee ka hortaga gabowga. Dadka qaarna waxay sheegaan sababta quruxda dumarka Kashmir inay tahay inaysan isticmaalin waxyaabaha la isku qurxiyo ee kiimikada ah. Dadka Kashmir waxay ku tiirsan yihiin dabeecadda, waxayna isticmaalaan waxyaabaha dabiiciga ah. Marka gabar walba oo muuqaalkan daawanaysa, tijaabi waxyaabahan dabiiciga halka aad ka isticmaali lahayd make-up iyo wixii la mid ah. Nin walba oo daawada muuqaalkan, haddii aad rabto inaad guursato gabar Kashmir ka soo jeeda nabadii, si aan u barano caadooyinka ugu yaabka badan ee la xiriira guurka iyo xafladaha arooska ee Kashmir. Arooska Kashmir waxa uu maraa marxalado badan ilaa laga gaaro arooska u dambeeya, kaasoo soconaya 3 maalmood. Maalinta ugu horeysa waa maalinta cilaanka,
maalinta labaad waa arooska, maalinta u dambaysana waa maalinta cuntada, waxaana loo yaqaanaa maalinta waliimada. Maalinta ugu dambaysa, aroosadda ayaa xirata dhar dhaqameedka Kashmir, kaas oo gacanta lagu sameeyey. Dabaaldegga halkaas kuma eka. 7 maalmood ee ka dambaysa arooska ayaa sidoo kale ah waqti dabaaldeg. 7daas maalmood, gabadha aroosadda waxay xirataa 7 midab oo kala duwan, mana qabato shaqada guriga. Marka la eego dhaqamada xun ee ka jira gobolka Kashmir, waxaa ka mid ah dhulka Kashmir waxaa lagu muransan yahay 10 sano. Taasna waxay keentay in dumar badan ay waayaan raggoodii oo ilaa maanta la ildaran dhibaatadan. Sababtaas awgeed, bulshadu way diiday in haweeneydaas mar kale la guursado, kaliya kadib dhimashada ninkeeda oo la xaqiijiyo mooyaane, taas oo aan macquul ahayn. Sababtoo ah waayitaanka wuxuu sii socon karaa sanado badan ama abid, taas oo ku sababta in gabadhaas ay ku noolaato nolol adag, nolol xumo iyo rafaad. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay tii ugu darneed ee aad ka maqashid gobolkan kadib weerarada ka dhanka ah muslimiinta.